taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Sheekh Abdullaahi Ciirow oo shirjiraad isku gobadii harunta taliska qaybta lixdanaad ee magaalada Baydhabo ku hadlay guud ahaan howlo ciidanka walibana sheegay in ciidamada dawladda ku helaan xuquuqyo kala hayaan walaatu ku bilowdan la kala xisaabtamo doona shaqadiisa askari walba may faday in aan digniin iyo ogeysiinsi ciidamada qalabka sida gaar ahaan qaybta lixdanaad oo baryaalkan baxbacsanaan badan iyo kala daadsanaan aan aragay taasoo limbaahanyi in arday shaqada sidii lin admidi oo arday shaqada qaranka sidii linka talagalay lin gobada muddo badan may jirtay in arday askarta ku cabada jirtay mushaar la'aan oo goobo badan laan ku baxay jiray taasoo hadda dawladda cover gareeyay ama marnay askartii xuquuqdiyo sidii may la reeyay dirita iyo dubeera kelmad way malay talyaaniga wala askariga xaqan leeyin in qaranjay ku hala usuun waajibaadka qaranka leeyin isu fulay hadda tii dhamaati wal orday la marmarsiyoodo oo badan ma jiraan dawladda walaay xuquuq ay la kala hayay way ku halay askari kasta sarkaal kasta may waajibka ah marka in isu shaqadii qaranka usan hay in isu gududo meel kasta oo arday liin egmadi oo arday shaqadiisa hayti goob kasta in isu seeda waan ku hawlgala dhinaca kale taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee digniin andari ciidanka ilaalada ku ee madaxda shirkadiisan walibana mas'uuliyiinta ciidamadaas ilaalada ku aan ka baqayn intii askari walba shaqadiisa oo ka nagan 24 saac gudasho si sun gudud waajibaadkiisa qaranka ma jirtay askar badan oo arday staafiye ka maqan oo la jiraan wasiir la jiraan meel raay dad oo xildhibaane odayaal malaaqiyo taas way ba dhabar jabka taa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada sideeda oo edman ani ilaalada ammaanka iyo hareeraha magaalada Baydhabo iyo shacabka la kundruhay taas mas'uuliyiinta ciidamadaas la jiraan ma in ku digay in arday ciidamadaas hasku diraan ha ka nagaan ciidamadaas unugyada iyo kooxaha iyo hurimaha iyo ka tirsiin in arday ahaan nagaan mas'uuliyad ma ah in arday difaaci la ka jiifi shacabka koonfur galbeed ka jiifi ada ku aruursata ciidankii guriga kinwaardiyaan haddana hadhow mikrofoonka qabsata erta qaybta lixdamaad guutadaasdeedu wal materiaal walna gobadaan waajib joon mugudaan difaacina ku baahan inaad erta kan korey adinagadaas marka sidaas daraadii mas'uuliyadda noo saaran in arday ceebtasi qofka ka nagadaas way buuha anu especially taliyaha qaybta lixdamaad ya khaasatan taabadaas mas'uul kasta may arday ku digay hadii askarigi u saadar waay ogaaday meel kasta meel isroog yeelinka koy waanu askarigaas way wade shaqadii qaranka yeelin daree meel alla meel isku kabon yeelin daree sidaas daraadii may ku codsadaan mas'uuliyiintaas ciidamada xareysadii way jareen dad siyad askari haysan mas'uuliyiin may jartay haysadaan siyad sagaal tum haysado jar tum askari may unu ciidanka away oo aagdon difaac korto ama weerar qaado korto ma in baahan marka ku waran ba hadii arday konton qof oo mansiyada ama mantum ay hob la wada meeqanaqadaas marka gorda korto hobad ka dhawta wali tiradaas sidaas daraadii askari kasta goob kasta isroogay ama mas'uul la socday ama magaalada ka jaroy walaa saacadan geeka la ku bala 24 saac gudaantiyo mayl ku faday inuu ciidamadiis goobihii uu ka tirsanay gorde meelaha inuu ka nagad shaqadiisa inuu qabsado hadii uu qobada waay oo ku dhaga adeega maadaama xuquuqdii dawladda isku lahay marka hore ku marmarsiyo uu hadda la sii talaaba sharciga waafaqsan loo qaaday hadhow walba ma taraaso mika aalan iyo san hayti walba ma taraaso may amarka si askari kasta sarkaal kasta oo ka tirsan
qaybta lixdamaad gaar ahaan guutada sideed aagan baydhow ani lankasta shaqadii tis iyo goobtii tis kana 24 saac gudaad iyo laakiin la ku waaye way la ku qaaday talaabo sharci waafaqsan ana meeraw sudun nidaamka ciidanka yaa la tiigsan doon General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo fariin adag antiri askarigii amarlaan kubaha furmo dagaalka in sharciga la tiigsan doona ma indaray dadka noocaas oo kale ani arday ciqaab adag mutaysado doonaan xeerka ciqaabta waqtiga dagaalka qodobka 229 xeerka ciqaabta waqtiga dagaalka ya arday mutaysado doonaan ma naqad korteel in la toogdo ma naqad korteel in arday diriiska lagu siib ani xuquuqdii waayaan walbadan oo ciqaabay mutaysado koran ya arday ya furum marka askari goob dagaal ku bay sidii wayba toogasho way والله ولاقي هدوك بالله وذا سيد هذا بحري أنا شيء لأن اللي كدول قاعد سركال هذا أما عسكري هذا قابتي شغلي سكتابة أمر لها كذا والله ولا يشرعي ويسكولوا لي ويبقى تاس عفيس ملء وسوش شلي هكبير عيدك حق ذلك الصوماليات كبير عيدك حق ذلك الصوماليات سيدي ما يلهي وانين اختيار كذي لا اختيار جلها وسوش هكبير ما يخصبنا لأن لانك قبض كورنا شغلات أما وساب مر شلي دور هذي هذا ويبوها أرجع هقول أنا شغلة من قبض كور أما فلينو مكواتوي أما سواء كلا كواتوي وسولك فذا أنيس أرض بناك هاسلك إن بناك هسولم أو دولة خيامين أو أما الشعب كان خيامين مركل لانك اللي كجيف ذي نجيف توي مرنا وسولك كجيف هو بسونها ميلك وبها مركل إن ومضيع خيامين ومعنا جا مركز سياس درادية لان اللي كدول قاعد دون أما excuse إن بيكر أما لينكو قاضوا تونا ما جرتوا إن دلقات لما هذه حقوق دي عسكري حلي إن أدين واجبك لك لا يقولوا السلام عليكم فيصل داي حسين ورباهنتا كونفور قلبيد بايدبا